بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa hadduu Ilaahay raado barnaamij muhiim ah inaan halkan ugu soo gudbin doono oo taxana laga bilaabo maanta taariikhdu ay tahay 2021 bishii 9/17-keeda. barnaamijkaas wuxuu yahay waa barnaamij waxaa la yiri in wax arkayso ilaalmo ka dhan. barnaamijku waa kan barnaamijka halkan saaran waaye dad badan ayuu si khaas ah u qoseeyaa. dad badan inay ka faa'iideystaan waa dhici kartaa, laakiin dad badan si khaas ah u qoseeyaa waliba si gooni u taabanaya. marka insha Allah waxaan rajaynayaa barnaamijkaas dadkaas si khaas ah u qoseeyo inay ka faa'iidi doonaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku anfici doono. anna Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka aakhira inuu ugu kabo. barnaamijka waa farbarka farta carabiga baritaankeeda amba higaada carabiga qofka in la baro oo soo u noqdo qof quraanka kariimka baran karo oo akhrin karo isagoo gurigiisa jooga oo ma arta macallin uusan u baahan inuu farta barto. marka biidnaa kariim maanta laga bilaabo waxaan rajaynayaa in barnaamijkaas taxana aan soo gudbiyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ka faa'iideystaan oo barnaamijkaas si toos uga faa'iideystaan. معهدka beerkiisu uu leeyahay waa kan معهد القمر للقرآن الكريم وعلومه. halkaas insha Allah ayuu taxana aad ka heli doontaan la socod wanaagsan. kaliya waxaad sameysaan subscribe saarisiin iyo gambalaalka taabta share na garee si ma arta mar walba wixii soo dhaca barnaamijka soo geliyo uu ku soo dhaco gambalaalka taabo iyo waxaad sameysaa kaliya la socod wanaagsan casharada la soo dhigo inaad si fiican aad casharadii aad u dhageystid aad u daawatid aad u qorto ku celiso. marka casharka aad dhageysanaysidna aad u dhageysto inuu noqdo casharka kugu horeeyo kuguna dambeeyo inuu noqdo casharkaas dhageysigiis marka kugu horeysa inay noqoto marka kugu dambeeysan inay noqoto oo aad is dhihin mar kale dhageysan doonto hadda iska sii mare haddana hadhow marka iska dhageysan ka noqonin aad u dhageysato barasho inaad baratid casharkaas aad baratid ruufaha meesha lagu qoro oo ku yaala ku muuqda waa 4 xarfood casharka oo dhan 4taas ku saabsan yahay. alif wax male waa 28 xarfood 28 kaas xarfood ayaan rabaa insha Allah inaan u qeybiyo 7 beri 7 cashar inaan ka dhigo. marka kan waa casharka koowaad wuxuu maarta uu ku saabsan yahay alif ba ta tha 4taas xarfood ayuu darsigeena ku saabsanaan doonaa maanta insha Allah la socod wanaagsan. alif waad u jeedaa booga wuxuu leeyahay xariiqmo uu leeyahay xariiqantaan iyo midaan inta u dhaxaysa alifka ku qoraysa. alif waxaad ka bilaabaysaa xariiqanta koraad ka soo bilaabaysaa xariiqanta kor ka soo bilaaw sii jiid adoo toosanay tan hoose geey isku day mar labaad isku day mar saddex isku day mar afraad insha Allah waa toosan doontaa ha ka caajisin. alif waxaan ku dhahay xariiqanta kor ka bilaaw geey xariiqanta hoose toos alif magaciisa waxaa la dhahayaa alif xariiqanta kore saan u soo bilaa hoos u jiid hoosa ka bilaa ka hor jiidi kor ka soo bilaa hoos u jiid alif xariiqanta kore ka soo bilaa xariiqanta hoose ku jooji alif adhaysa alif ba xarafkan magaciisa waxaa la dhahaa ba ta saddexdan xarfood way isku eg yihiin qoraal ahaan isku qoraal weey isku si baa loo qorayaa laakiin waxyaabo ay ku kala duwan yihiin baa jiro. xaraf walba wuxuu leeyahay calaamad gaar ah oo u gaar yahay. xarafkan baad wuxuu leeyahay wad u jeedaa hal dhibic ayuu hoos ka leeyahay ta'da 2 dhibic ay kor ka leedahay ta'da 3 dhibic ay kor ka leedahay 1 2 3 marka waxaad isku dayaysaa xarafkan inaad xifdisid muuqaalkiisa qoraalkiisa inaad xifdisid kan muuqaalkiisa inaad xifdisid qoraalkiisa aad xifdisid mid walba saas oo xifdiso. xarafkan waxaa dhahay alif adhaysa alif kan waxaad leedahay ba xarafkaana ta ثاء
كان واحد ليس ثا حرف كان واحد ليس تا حرف كان واحد كسو ساريسا عرف كفوديسا iyo labada foolasha kore halka ay ka soo baxayaan arab foodiisa ku qabanaysa waxaad leedahay ta kana arabka foodiisa foolasha kore foodooda isku qabanaysa ta aan qorno marka alif waxaan dhahnay qoraalkiisa sar kore ka soo bilaab kan hoose geey kan kore ka soo bilaab kan hoose geey alif waa intaas alif ku celceli إذن الكريم وتقول لسنتون دون تاي با waxaa ka soo bilaabaysa kan iyo kan meel u dhaxaysa sadarka kore iyo xariiqada hoose meel u dhaxaysa oo u dhow midka hoose ka bilaw inta ka bilaw waxay san u yar jiifi marka inta aad jiido adoon sadarka saarin sadarka wareegii ku soo saar soo jiid meelaha marka imaado inta aad saartay inta saa xaga soo yeesho oo kale inta si kici waxyar wareeg ku kici iska sii toor waxyar dhibacda hoos ka sii saan ugu taawo ku riix waxyar saan u dhaqaaji waxaad dhahaysaa marka ba waa kan ba isku mid wey kan ba kana baad dhahaysaa waa isku mid taada sidii bacdaad usoo qortay u qor تاء سيد بعض أسوق هي كل دويه ما تنبأ كذا وتنبأ كذا ما يعمليه كذا تنبأ هي كل دويه ما توجده وأسوق قرال لكن ما هي كل دويه تاء لا بد بعود بين ذا كو لو إلى بعد أول ما كر إكلا ذا تاء حرف كلمة حاسوبيه دون لا بد بعود له لكن هوس كلمة تاء لا بد بعود إلى هاي كر إكلا marka ta saasa qore dhinacyadaas kor ka saaray ta alisa ta waxa ku harsan ta isku qoraal waay waxa kuma kala duwana calaamada mooyaan ta saddex dhibaad kow labo saddex markale aan kugu celiyo alif xariiqada kore ka soo bilaaw xariiqada hoose geey si toos ah xariiqada kore ka bilaaw xariiqada hoose geey si toos ah ba xariiqada kore iyo tan hoose meel u dhaxayso oo xariiqada hoose u dhow ka bilaaw inta ka bilaabaya jiif oo saas yar u yasir jiifi markaas uu jiifi waxay markaa dhawaatid inta sarka gaarin wareeg ku saar sadarka soo raax xariiqada soo jiid inta wareeg uga kac meesha markaa waxay saa iska sito aad u tuuro oo meelaha geey waxay saa iska sito hal dhibac hoos si ba waa ta sida baan aan qorayna aydan dhaxda ka bilaab saa u jiifi sarka markaa u dhawaatid wareeg ka soo saar soo jiid ستة يشوف كلا إذن وريكو كع سيتو كروسيتو تا لما دبع روح عن كل هاي وساري سواحير ونوحير ودغاجن وساري وكريح وحير دغاجن ثا ولمت ثا سد بعد تعال أسوق الأقر أيضا سدح دبعوت سا كو لابو سدح ثاء هنا ثاء أنا كل عندنا مركلة ألف باء تاء ثاء مركلة أنا كل عندنا ألف باء تاء ثاء ألف باء تاء ثاء وحرجينا يا إن شاء الله أنت ستفهم دونتان عشر كان وعشر كوبان وحنو استحق دونا عشر كلمات سدحات أفراد إلى إن شاء الله وآد جارتو مال أدو كتاب أنت صوبح ستة آد آخر ست أبو جارسن دونا هدي ما تسخات أجيفتو هنا كاسو كعيان اسكودي إن شاء الله بإذن الله الكريم إلهي ليك يقرب له كلي واحد سميسا لا سعو عشر كا صو دياري سيفي عولا سعو صو دياري اسكودي إنا واحد بدن أتكون عرسو مر معها الله معها سدح معها واحد بدن
marka insha Allah intaas la socod wanaagsan qofkii wax caqabad ah oo maaragtay ay ka hor imaadaan wuxuu igala soo xiriiri karaa numberka WhatsApp-ka balaas 25 26 hal 8 eber afar toddobaatan iyo sagaal haddii aad dareento culeys oo xuruufaan ku saabsan numberkan igala soo xiriiri doontaa bidinal kariim wixii musaacadaha kaalma uu ku kaalmeynaya insha Allah cashar ku dhigi maayo markaas dars ku dhigi maayo laakiin xarafkii ugu culeys kugu noqdo waa kugu saacidaya bidinal kariim casharada la soo soco inaadan u baahanin macallin toos kaaga saxa laga yaabaa quraanka markii aad gaarto macallin laazim waa u baahanaysaa laakiin xuruufaan haddii si fiican aad ula socoto oo si fiican u soo diyaariso oo aad isku daydo inaad u maaraysid wax badan bidinal kariim inaad guulaysan doonto inaan rajaynaya meel walba aad joogto oo gurigaad oo joogto aad baran doonto bidinal kariim adigii hooyo walba maamo walba mas'uuliyadda ku saaran adigii iyo awlaadaada casharada si fiican u soo barta casharka xigo aan qaadanayna insha Allah marka casharka ku xiga aad dhageyso adoo casharkii hore bi ama wacbaaya casharkii hore adoo si fiican u yaqaan oo xarafkii qor lagu dhaxal qor kartid meel hadduu qoraya lagu weydiiyo aad ka jawaab kartid casharka labaad dhageyso wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh intaasaan kusoo gabagabeynay